صاحب هذا بيجك كعصبتها ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا سهلا يا رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كلنتي وناغسن واتحنهني نفقada dhirtu u baahan tahay cashirkii sideedaad ayaan maanta qaadanaynaa wuxuuna ku saabsan yahay curiyaha loo yaqaano iron ama bir. naanaysta curiyaha birta waa curiyaha 26aad ee kalgalka curiyayaasha. iron ama bir waa bir ka mid ah curiyayaasha kala guurka ah ee kalgalka curiyayaasha. tiratamkeedu waa 26 culays atamkeeduna waa 55.84 kaaftoonkeeduna waa 2 ama waa 3. bir iyada oo ay jirto in xadiidku ama birtu ay tahay curiyaha afraad ee ugu badan dhulka korkiisa ayaa haddana waxaa caadi ah in bir yaraantu ka muuqato dalagyada kala duwan. ereyga bir yaraantu waxaan ula jeednaa curiyaha loo yaqaano birta ama iron ama xadiid ayaa waxa ku yaraanaya geedka sababtoo ah wuxuu ka mid yahay curiyaasha geedku u baahan yahay si shaqadiisa uu qabsado. xadiidku wuxuu ka mid yahay curiyaasha ugu dhex socodka yar dhirtu waxay xadiidka nuugtaa isaga oo ah ayoonka maxay raahdaa iron oo positive 2 ah ama iron oo positive 3 ah. waxtarka xadiidku wuxuu muhiim u yahay sameynta chlorophyllka iyadoo oo ay shaqadiisu tahay gudbinta tamarta inkasta oo uuna ka qayb noqonin isku dhiskiisa. meesha ayada haddaan yara qeexo chlorophyll waxaa la yiraahdaa maadada samaysa ama geedku uu isticmaalo sameynta cuntadiisa. sidaad ogtihiin dhirtu ayada ayaa samaysa cuntada geedku ku noolaanayo isla markaa dhirtu ayada ayaa samaysa cuntada noolaha kale ay ku noolaanayaan. sidaa daraadeed waxaa isu imaanaya ilayska qorraxda iyo chlorophyllka oo lagu daray carbon dioxide oo ka imaanaya hawada oo lagu daray biyihii. intaas ayaa waxay samayn doonaan glucose ama sonkortii samayn doona. sonkortaasna waxaa laga samayn doonaa isku dhisyo fara badan oo dhirtu u baahan tahay oo nooluhu u baahan yahay. taasna waa sancada ilaahay iyo farsamada ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaa in badan ku mahadsan. marka xadiidka ama curiyaha birtu wuxuu muhiim u yahay sameynta chlorophyllka shaqadiisuna waa gudbinta tamarta ama enerjiga inkasta oo uuna qayb ka noqon doonin isku dhiskiisa kama dhex muuqan doono isku dhiska chlorophyllka. waxaa kale oo muhiim u yahay gudbinta elektaroonada neefsashada yareynta nitrate-ka iyo sulfate-ka. macnaha dhirtu way neefsadaan. neefsashada dhirta ayuu muhiim u yahay sida uu muhiim ugu yahay noolaha kale oo bani aadamku ka mid yahay neefsashadiisa. astaamaha yaraanta xadiidka ama birta. marka xadiidku yaraado geedka waxaa jaalle noqda caleemaha cusub gaar ahaan inta u dhaxaysa xididada. caleemaha cusub marka aan leenahay waa caleemaha hadda soo baxay laanta meesha ugu sarreysa oo uu geedku ka koreeya caleemaha ku yaala ayaa jaalle noqda sida kaaga muuqata sawirka ee gacanta bidix ama dhinaca midig ka muuqda oo hadda keersarku uu korkiisa saaran yahay. caleemaha cusub ayaa midabkooda wuxuu jaalle noqonayaa gaar ahaanna inta u dhaxaysa xididada. caleenta haddaad og tahay xidida ayay leedahay. xididadu ayagu baaqi waxay ku ahaanayaan cagaar laakiin labada xidid inta u dhaxaysa ayaa waxay noqonaysaa jaalle. haddii ay badato xadiid yaraantu waxaa gebi ahaanba caleemuhu isu bedelaan jaalle oo maca xididadii ayaa jaalle noqonaya. waxaana dhici karaysa inay caddaan noqdaan gaar ahaanna kuwa cusub. caleemaha cusub waxaa dhici karta in midabkooduba caddaan isu bedelo ayaa dhici karta jaalle ay kasii gudbaan. xadiidku hadduu aad u yaraado waxaa darfaha ka gubta caleemaha. macnaha ka gubta maxaan ula jeednaa sidii wax gubtay oo kale ayay noqonayaan waxayna yeelanayaan midab kafee ah. haddii xaaladdu kasii darto waxaa suuragal ah in gebi ahaanba caleemuhu daataan. yacni xaaladda xadiid yaraantu hadday kasii darto waxaa dhici karaysa caleemuhu inay geedka ka daataan gaar ahaanna caleemaha cusub oy ahayd ayagu inay sii joogaan
ayagaa daadanaya ugu horeyn sawirkan bal u fiirso waxa uu muujinayaa maartay geedkan inuu ku yar yahay xadiidku waxaad arkaysaa xididadii in midabkoodu cagaar yahay laakiin labada xidid oo kasta inta u dhaxaysa in midabkeedu uu noqonayo jaalle ayaad arkaysaa halkan waxaa kaaga muuqda geedka loo yaqaano tomatada ama yaanyada ayaa kaaga muuqda waxaa ku yaraaday xadiidka ayaa ku yar waad arkaysaa xididadii waa cagaaran yihiin inta xididadu u dhaxaysa ayaa jaalle ah halkan waxaa kaaga muuqda beer canab ka baxayo canabkii sidaas uu darfaha uga soo gubanaya caleentiisa aad arkaysid halkan waxaa kaaga muuqda gabaldaya caleemahani waa gabaldaya marka xadiidku ku yaraado sidan ay u muuqanayaan tani waa galay marka ay ku yaraado xadiidku ayaguna sidan ayay u muuqanayaan waxaad arkaysaa qaarkood caleemada qaarkood oo darfaha ka gubtay ayaad arkaysaa ama aad moodaysid inay ka gubteen halkan sidoo kale waxaa kaaga muuqda caleemo kala duwan oo ay ka muuqato xadiid yaraanta iron deficiency ayaa ka muuqda calaamadahoodii marka calaamadahani waa muhiim inaad xifdiso ood weelayso si aad u ogaatid geedkaaga waxa ka dhiman jazaakum allahu khayran aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan leeyahay maartay ilaahay ha idin barakeeyo casharkeena maanta intaas ayuu ku egyahay haddii marka casharka aad wax ka faa'iiday waxaan kaa codsanaynaa inaadan iloobin inaad tiraahdo pageka subscribe inaad tiraahdid inaad like tiraahdo ha iloobin oo asxaabta aad u sheer garaysid si uu dadka kale u sii gaaro wadiin mahadcelinayaa mar kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh